5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gents. ma tahay ruux caajisay oo ku daalay shaqada ma tahay qof cidlo dareemay oo wehel u baahan idaacadda Star FM waa hormuudka idaacadaha meherad walbo ayay ka daaran tahay oo lagama damiyo waa ay ka shidan tahay Star FM liskuma hayo in ay tahay leerka laabte waxaaba intaasi u sii dheer in ay tahay libaaxa leerta jiifo haddaba mar walbo wehelkaaga ka dhigo Star FM warbaahinta wacan ee loo bogay Star FM codka gobolka waqooyi bari ma ka warqabtaa in idaacadda Star FM ay tahay warbaahinta goob walbo iyo mar walbo weelka ku ah sida inta gambarada ku fadhido ee ku mashquulsan howlaha guryaha laga qabto haddii ay ahaan lahayd dhardhaqid cunto karin iyo qoysaska sheekada haysto inta ku dhex jirta gawaarida u kala gooshayso goobahooda shaqo iyo inta dib ugu laabanayso guryihii iyo goobihii ay ka soo kicitimeen inta webiga jiinkiisa joogto oo yaambada la dhacaysa beeraha inta geedaha dusha ka saaran si ay mar un u helaan codka dheer ee idaacadda inta baadiyaha joogta oo xoolaha la jirto raadiyahana uu garabka u suran yahay inta barkinta baalka ku haysa ee laamaha cagaaran afka iyo gacmaha u dhexeeyaan inta ku dhex sugan meheradaha waaweyn sida dukaamada iyo maqaaxidaha oo nuurka idaacadda Star FM oo ka baxayo waa hubaal in ay wehel dhab ah u tahay wiil iyo waalidba oo ay wada qancisay Star FM codka gobolka waqooyi bari idaacaddan caashaqay nuxur ahaan midii ugu wacanayd nuurkii dunidaay maqalkii dhagahay dhagta adiga mooye dooni maysa warbaahin kale barnaamijyada Star wacana dhaguhuna u fududa wargelintii bulshada hanuunin iyo madadaalo tii looga haraa tahay gacaliso Star FMA xaggeen kaa helaa 1.5 ayaad iga heli kartaa Star FM codka gobolka waqooyi bari Star FM warbaahinta wacanay loo bogay warbaahinta wacanay loo bogay casriga iyo caalamka maanta dunidu waxay gaartay wadiiqo kasta oo wax lagu fududayn karo si dadyagu ay u helaan waxa ay u baahan yihiin waa fikir loo maray dadaal badan una baahan fahan xeel dheer oo laga hufay wax kasta oo dhibaato keeni karo haddaba dhegayste ma og tahay in idaacadda Star FM ay kula diyaar tahay hannaan kasta oo aad ku heli karto waxa aad u baahan tahay ee xoga sidoo kale ay fikirkaaga kuugu gudbin karto bulshaweynta ku sugan dacallada dunida adigoo aan marin harjad iyo wax dhibaataa midna biyadhaca warka iyo yoolka arartayda garo adigoo aan wicin taleefan lacagna kaa dhammaan si aad u hesho warar iyo barnaamijyo dhabka hadala iyo xogta dunida taal haddaba la xidhiir Star FM dhegaysta u riyaa ama like saar page-ka dhanka Facebook ee Star FM 105.9 kadibna ku dhiiba si bilaasha fikradahaada kana dhegaysa raadiyaha kuma eka intaasoo keliya waxaa kuu sii dheer fariinta gaaban ee 2296 Star FM waa warbaahin adiga ku gaara kuna hadasha afkaaga hooyo ku taageer maqalka oo u raarici dhegta waa hagaaga khayrtaan oo jecelnahay intaas haddii aanu ku dhaafno qadaradaasi kala gedisan weli waxay nagala socotaan idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari meel walba aad joogtaan waxaanu idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan aan mar kale dib ugu laabano barnaamijkayga caweyska balse halkiisa uu inooga sii socdo تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل بروبى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح akhyaartaan u jecelnahay waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka ramadaanka ee tartanka dhageystayaashaan ugu talagalnay su'aalihii ugu horeeyay ayaan ku guda jirnaa waliba gaar ahaan su'aasha koowaad ee cawada wali aan laga jawaabin miiska saaran
تهتف باسمك الدنيا. su-aasha koowaad waxay u dhacaysaa dhegeysta sida tan sheeg magaca muwaadinkii caanka ahaa ee reer Switzerland ee hubka qamar-dunyaha ama nuclearka wax lagu magacaabo ka yiri sida tan haddii aan ogaani lahaa waxaan noqon lahaa saacad sameeye haddii aan ogaani lahaa waxaan noqon lahaa saacad sameeye khadadka waa eber 7 eber 2 3 5 eber eber 9 eber iyo eber 7 8 1 eber 5 1 eber 5 saacadda markay soo gaarto 10 qadar 30 daqiiqo ama 4 saac barna waxaa maqli doontaan qodobada warka cawada ugu door koran تناجي الله في صدري وترجو رحمة تسري وعاش القلب إخلاص وصرت تحبك الطير. waa tahay aan sii dhegeystayaasha ugu horeeya ee khadka ku jiro halo star waan ka xumahay dhegeystayaasha dhegeysta kale aan sii halo star fm halo magacaaga halka ay joogto cabdinaasir kalboy mandira cabdinaasir soo dhow su-aasha taagan jawaabteeda wallahi walal haddana isku dayay waxaan dhilahay James Scottish oo dalka u dhashay James Scottish ah aad iyo aad ay mahadsantahay cabdinaasir ma haysid isku day wanaagsan dhegeysta kale aan siiyo isagana khadka ku jiro si uu inooga jawaabo halo star dhegeystaha khadka ku jira aan siiyo si uu su-aashaas uga jawaabo star fm halo magacaaga halka ay joogto halo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa maxamed suleymaan min jumhuriyadda Madeira محمد سليمان soo dhow su-aasha jawaabteeda waxaa la Victor Fredrik Weskoff ku soo celi Victor Fredrik waa PF waay Weskoff maxaa ninkaas waa Austrian da Switzerland oo u sameeyay bobka oo dawladda waxaan noqon lahay saacad hagaaji waa tahay ma haysid maxamed waa mahadsan tahay isku day wanaagsan anaga ma dhihin ninkii sameeyaha say sheeg magaca muwaadinkii caanka ahaa ee reer Switzerland ee hubka qamar-dunyaha ama nuclearka lagu magacaabo ka yiri sida tan haddii aan ogaani lahaa waxaan noqon lahaa saacad sameeye fundi saacadda sameeye ayaa noqon lahaa haddii aan ogaan lahaa ayuu yiri hello star fm hello dhegeystaha khadka ku jira hello assalaamu calaykum waalaikum salaam magacaaga halka aad joogto debato waan ku salaam waa mahadsantahay waan kaa qaaday soo dhow su-aasha jawaabteeda gudkibir baa bolkibir haye soo daa jawaabta waan ka xumahay dhegeystahaasi dhegeysta kale aan sii halo star fm hello halo magacaaga halka aad joogto raadiga ayaa kugu dheer codkiisa waan kaa gudbeynaa haddii dhegeysto raadiga codkiisa uu nagu soo noqdo isma maqal karno dhegeystaha kale xiga halo star fm halo magacaaga halka aad joogto waan kaa qaaday oo kaa gudoomay soo dhawow magacaaga halka ay nagala soo xiriirayso cabdullahi xasan oo kamoor cabdullahi xasan soo dhawow su-aasha jawaabteeda dee waa maba jiraba intaasi maba jiraa maba jiraba haa ninkaas uu sameeyey saacadu sameeyey su-aasha saxid maba aad iyo aad ay mahadsan tahay waa ku mahadsan tahay su-aasha ilduf ma ahan waa su-aal toos ama dirita ah dhegeysta kale aan siiyo halo star fm halo dhegeystaha khadka ku jiro halo assalaamu calaykum alaykum salaam warahmatullahi faysal cabdiqaadir cabdiqaadir xagee joogtaa jawaabta egon pressure ku soo celi egon pressure pronunciation waa laga yaabaa dadka Europe waa tahay ma aha laakiin wax u dhow xitaa waa mahadsan tahay isku day wanaagsan gordhow waan isku soo noqon doonaa khayrtaan u jecelnahay barnaamijka halkiisa aan kasii maqaadi doonaa wax daqiiqad ka yar iyo qodobada warka ugu darkoran caasho xuseen caagan hayno akhriso soo gudbinta qodobka warka waxaa idiin sahlay saabuunta white wash extra basob white wash extra waxa ay kaa baahi bixinaysaa inaad soo kala iibsato saabuun iyo budooyinka dharka lagu dhaqo ilaali wakhtigaada lacagtaada iyo biyahaada adigoo isticmaalaya saabuunta cusub ee white wash extra waxaana saabuuntan kuu soo saaray shirkadda soo saarta badeecooyinka ee Pwani Oil Products Limited. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك دقيستيال قد بدو وركينا عاوة وقدور كورونانا وحكمدا
dowladda ismaamulka Mondero oo degniin ka soo saartay cudurka Rift Valley Fever ee ka dilaacay Wajeer 12 xogyaal ah oo lagu amray inay xafiisyada baneeyaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo shacabka magaalada Beledweyne oo iskaashanaya oo dayactir ka bilaabay qaybo ka mid ah xarumaha danta guud ee magaaladaasi iyo sidoo kale safaaradda Mareykanka ee Mozambique oo degniin soo saartay soo gudbinta qodobka warka waxaa idiin sahlay saabuunta whitewash extra basob whitewash extra waxa ay kaa baahi bixinaysaa inaad soo kala iibsato saabuun iyo budooyinka dharka lagu dhaqo ilaali wakhtigaada lacagtaada iyo biyahaada adigoo isticmaalaya saabuunta cusub ee whitewash extra waxaana saabuuntan kuu soo saaray shirkadda soo saarta badeecooyinka ee Pwani Oil Products Limited. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي waa hagaagintaas aanu ku dhaafno qadaradaasi warka cawada ugu dorkoron ee nala socodsiinaysa Caashe Xuseen cagana mahad balaaran ha ka gaartay khayrtaan u jecelnahay waxay nagala socotaan oo ay naga dhageysanaysaan warbaahinta oo aan loo bogay idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari muujadaha FM-da kala gadsan ayaa naga dhageysanaysaan magaalooyinka ay nagala socota haddii aan ku xasuusiyo waxa ka mid ah caasimada dalkani Kenya ee Nairobi magaalada xeebta Mombasa Garissa Dadaab Wajeer Mandera Habasweyn oo ay ka maqan tahay Tana River Masalani Marsabit Moyale Isiolo Mogadishu iyo dhageystayaasha dhinaca Facebook ee nagala socda oo ah Star FM haddaba tartanka dhageystayaasha ee Ramadaanka aan ugu talagalnay ayaan ku guda jirnaa dhageystayaal guuleysto kaar ayaan ugu guddoonsiinaynaa waxaan ugu talagalnaa habeen walbo ama guddoonsiina kaar 8 dhageysta oo kamid ah dhageystayaasheeda qiimaha badan ee kuwa guuleysta ay ka jawaaba su'aalaha sida la rabaana u asiibo haddaba haddii aad doonaysid barnaamijkeena ka qayb qaadatid lambarada kaga qayb qaadan karta waa eber 7 eber 2 35 eber eber 9 eber iyo eber 7 hal eber 5 hal eber 5 iyo eber 7 waa tan kugu celi mar kale waa eber 7 eber 2 35 eber eber 9 eber iyo eber 7 hal eber 5 hal eber 5 ayaa kaga qayb qaadan karta su'aasha lambarka koowaad ayaa weli taagan dhageysto haddii aan kugu celiyo sheeg magaca muwaadinkii caanka ahaa ee reer Switzerland ee hubka qomoladoonyaha ama nuclear-ka lagu magacaabo ka yiri sida tan haddii aan ogaani lahaa waxaan noqon lahaa saacad sameeye haddii aan ogaan lahaa waxaan noqon lahaa saacad sameeye su'aashaas 3 dhageysta ayaan siinaya ama 4 dhageysto haddii ay ka jawaabi waayaan waa ka gudbeena waan ka hor qaadanaa dhageystayaasha oo su'aal kale ayaan soo qaban doonaa hadduu rabbi idmo dhageystaha khadka ku jira aan siiyo Star FM halo assalaamu calaykum Star FM halo dhageystaha si uu iska mashquulsan yahay dhageysta kale aan siiyo halo Star FM dhageystaha khadka ku jira magacaaga halka ay joogto waa Xuseen Maxamuud oo jooga xarada qaatiga ifo Xuseen soo dhawo su'aasha jawaabteeda ma haysaa soo daa ingaas waxaa la Albert Einstein ku soo celi Albert Einstein Einstein Xuseen oo magacaaga ii sheeg Xuseen Maxamuud Siyaad oo jooga ifo muxuu ah ninkaas waa saynisyahan oo ahaa waa tahay Xuseen ninkaas waxaa lagu magacaabaa aad tiri Albert Einstein waa tahay waa ka jawaabtay khadka igu jir lamarkan kaa qoraayo من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسل waa hagaaga dhageystaasi waan ka qoranay lambarka waxa lagu magacaabaa Xuseen Maxamuud Siyaad wuxuu jooga xirada qaxootiga ifo ee degmada Dadaab ee countiga Garissa su'aasha lambarka koowaad isaga ayaa inaga hor qaaday waan uu ku mahadsan yahay su'aasha waxay sheegay magaca muwaadinka caanka ah ee reer Switzerland ee hubka nuclear-ka ama qomoladoonyaha
haddii aan si kale u dhigana waa hubka nuclear lagu magacaabo afka qalaad. Ninkii ka yiri sida tan haddii aan ogaan lahaa waxaan noqon lahaa saacad sameeye. ninkaas wuxuu ahaa nin saynisyahana waxaana la oran jiray Albert Einstein ayaa la oran jiray dalka Switzerland ayuu u dhashay. Su'aasha xigta ayaa soo socota goor u diyaar garow. su'aasha lambarka labaad waxay u dhacaysaa sida tan dhageysta waxaa sheegtaa magaca haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqotay hay-ad qaran oo haweenka ah sanadii 1966. waxaa sheegtaa haweeneydii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqotay hay-adda qaran ee haweenka ee sanadii 1966. sheeg magaca haweeneydii sanadii 1966 madaxweyne ka noqotay ama madax ka noqotay hay-adda qaranka ee haweenka. halkee waaye wadankee waaye weydiin. وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوما. dhegeystayaal badan ayaa khadadka ku jira oo doonaya su-aashaas inay ka jawaabaan. dhegeystaha ku jiraan si halo ista magaca halka aad joogto. Shucayb Saalax xagee joogtaa? soo daa jawaabta. magaxmaa dhegeystahaas waan ka gudbaynaa. dhegeysto kale aan siiyo su-aasha isagana diyaar u ah oo khadka ku jiro. halo ista dhegeystaha xiga. asalaamu calaykum. waan ka xumay dhegeystahaasi. su-aashaas waxaa moodaa in ay tahay mid adag. waan iigu celin doonaa mar kale hadduu rabbi idin su-aalihii fogaa laga soo gudbay. halo ista waan ka xumahay dhegeystahaasi isagana waa uu mashquulsan yahay. dhegeysto kale aan siiyo. halo ista fm helo. waa tahay aan dhegeystahaas intaasi ku dhaafno. dhegeystahan kale aan siiyo ee khadka ku jira isagana doonaya su-aashaasi in uu ka jawaabo. halo star fm. halo asalaamu calaykum. وعليكم السلام. magacaaga halka aad joogto. وحسن عثمان محمد وجه مقاول رامو. xasan soo dhow su-aasha jawaabteeda. سؤال سام فلاية. haye waxay la tahay aniga inay tahay maraykanka. aad iyo aad ay umahadsan tahay sida barnaamijka uga qayb qaadatay. waa tahay su-aasha lambarka koowaad ayaa waxa ay u dhacaysay sida tan ee dhegeystow sheeg magaca muwaadinkii caanka ahaa ee reer Jarman ama Jarmalka u dhashay meesha aan ka yaray Switzerland. waa tahay helmaha hadal kuma jira ee hubka qumrundiyaha ka yiri haddii aan ogaani lahaa waxaan noqon lahaa saacad sameeye. ninkaas waxaa la oran jiray Albert Einstein. dalka Jarmalka ayuu ku dhashay. wuxuuna uu ku horumaray dhankaasi iyo fisikska casriga ah ee cusub. wuxuuna saameyn uu ku lahaa sayniska dunida hadda la joogo. wuxuu dhashay 14 bishii 3 ee Maarso sanadii 1897 ayuu ninkaasi ku dhashay magaalada lagu magacaabo Ulm ee dalka Jarmalka. wuxuu geeriyooday 18 bishii 4 ee April sanadii 1950 wuxuuna ku geeriyooday Princeton halka lagu magacaabo New Jersey ee dalka Mareykanka. waxbarashadiisa waxa uu ku qaatay magaalada Zurich caasimad lagu magacaabo Zurich oo 1905 ilaa 1896 ilaa 1900 oo gow ah ayuu halkaasi ku noolaa. waxa uu guursaday haweeney la oran jiray Mileva Marik sanadii 1919 ilaa 1936 waxaana ay kala tageen sida la sheego sanado yar kadib markii ay isqabeen. saynisyahankaasi aan soo sheegin oo dhashay dalka Jarmalka. su-aashaas intaas aanu ku dhaafno. su-aasha labaad ee taagan weli haweeneyda madaxweyne ka soo noqotay hay-ad qaran oo haweenka ah ayaa laga rabaa. haweeneydii ugu horreysay taariikhda abid ee madaxweyne ka noqoto hay-ad haweenka ay leeyihiin. weliba haweeneydaasi waa haweeney qoraa ah islamarkaasina u ololeyso arrimaha dumarka ama haweenka. waana haweeneydii ugu horreysay ee dhaqdhaqaaq haddii aan si kale u sheegana jawaabta ay soo fokanayso bal aan ka gudbo. waxay soo saartay ama ay daawacday buug
sannaddii 1963 buuggaasi oo ku saabsanaa arrimaha haweenka. haweeneydan waxay dhalatay taarikh 4 bishii 2 ee Febraayo ama February 1921 meesha ku dhalatay su'aal ayaa saaran oo mar raba inaan sheego. waxayna dhimatay 4 bishii 2 ee Febraayo 2006 isla meeshii ay ku dhalatay ee waddankaas ayayna ku geeriyootay. waa tahay intaas ayaan ku dhaafay faahfaahin kale haddii aan sii bixiyo jawaabtaa soo boodaysa. dhegeysta kale. halo star FM. halo asalaamu calaykum. halo wacalaykum salaam. magacaaga halka aad joogto? abuu cali abgaarsa joogo. cali soo dhowo su-aasha jawaabteeda. abuu jawaabteeda waxaan u malaynayaa indira gandhi. aad iyo aad ay mahadsan tahay. waddankee u dhalatay? waddanka India. mahadsan tahay. ma haysid su-aashaas jawaabteeda. isku day wanaagsan. mahad mugande ayaa maqli jiray kolley xaaskiisu soo qaatay. dhegeysto kale. halo star. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga halka ay joogto? haye juweeriya soo dhow su-aasha jawaabteeda. su-aasha magaceeda jawaabta. qoftan aan ka hadlayna ee haweeneydan magaceeda rabnaa. waa taa mahadsan tahay. ma haysid gabadhaasi magaalada Nairobi ay nagala soo xiriirtay. su-aasha mar kale haddii aan kugu celiyo dhegeysto sheeg magaca haweeneydii ama gabadhii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto hay-ad qaran oo haweenka u doodo sannaddii 1966 haweeneydii madaxweyne ka noqoto hay-adda qaran ee haweenka ayaa laga rabaa. haddii su-aasha sii adkaatana waan jelcin doonaa si dhegeystayaasha bal ay u fahmaan ama ay meelo kale uga raadiyaan. laakiinse hadda intaas ay inoo joogaysaa su-aasha. dhegeysto kale khadka ku jiraan si halo star. xuseen soo dhowow su-aasha jawaabteeda. kusoo celi. mother Teresa. waa mahadsan tahay. waa soo dhoweysay laakiin maadan sheegin. halo star FM. halo السلام عليكم ورحمة الله فيصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga halka aad joogto? والله عدم درجو. يوسف soo dhow soo daa. والله حدا في talyaani u dhalatay. haye marka magaceeda ma haya. magaceeda markaa soo shidnoo keen magaceeda rabnaa. waddankay u dhalatay gadaal ayaad inoogu sheegi doontaa. halo star. cabdullaahi wajajo. haye cabdullaahi soo dhowow su-aasha jawaabteeda. wilma redor falda. ku soo celi. wilma redor. aad iyo aad ay mahadsan tahay. isku day wanaagsan cabdullaahi oo adigana. halo star FM. halo codkaa karo qaad fadlan. magacaaga halka ay joogto? waan ka xumahay dhegeystahaasi. isku day wanaagsan. dhegeysto kale aan siiyo. halo star FM. halo asalaamu calaykum. star FM. halo magacaaga halka ay joogto? waa tahay raadi haddii uu kugu shidan yahay ismaqalka ma wanaagsanaan karo. 1000 jeer ayuu codkaaga inagu soo noqonaya. marka fadlan raadihaas ka dambe si ismaqalka u wanaagsanaado. haddaba dhegeysta waxaa jiro dad badan oo tabaalaysan oo heli karin waxay cunaan meel ay seexdaan hooy iyo dhaxantii roobka meel kaga gabadaan. taasi ugu wacan tahay gacantooda oo ka maran xoolo iyo hanti toona. waa dad saboola islamarkaasina waxay ku nool yihiin dalkani Kenya iyo daafaha caalamka. idaacadda Star FM waxay isku xilqaantay dadkaasi sidii ay wax u gaarsiin lahayd adigoo markaasi ka faa'iideysanayso sadaqadii ajirka qofkaasi sooman sida ku afurin lahayd sidii dharka ciid ugu gadi lahayd caruurta laga yaabo agoon inay yihiin ama waalidiintooda ay sabool yihiin waxba awoodin si dadkaasi wax lagu gaarsiiyo. warbaahinta Star ayaa waxay kuu suurtagelinaysaa sidii dadkaasi lagu gaarsiin lahaa waxa aad rabtid ee sadaqa ah. fadlan shirkadda isgaarsiinta ee dalka Safaricom ayaa qaybta lacagta la isugu xawilo ama la isugu diro ee M-Pesada Paybill ayaa idaacadda ku leedahay. kaas ayaana ku soo shubaysaa lacagta ha yaraato 10 shilin ha haato ama ha badnaato kadibna dadkaas ay si dhib la'aan lagu gaarsiin doonaa. fariinta haddaba Paybill ku soo diri kartid ee till number-ga aan kuu sheego waa 577419 waa 577419 Paybillkaas buy goods and services ayaad ka tegeysaa M-Pesa marka aad tagtid. Paybillka waxaa ka tegeysaa buy goods and services kadibna till number-ga gelinaysid
waa 57 halkaas bal waxaan ku soo tuur kadibna si loo gaarsiiyo dadka u baahan ee tabaalaysan ee afur iyo suxuur toon haysan iyo dhar ay ku ciidaan haddii ay carruur ahaan lahaayeen 5 7 7 4 9 10 intaasaan ku dhaafno su-aasha weli way taagan tahay dhegeystaha khadka ku jira star fm halo magacaaga halka aad joogto maxamed xagar dheer soo dhawow bal su-aasha jawaabteeda ma haysaa muraaya garaad axmed halo star fm dhegeystaha xigo star fm halo وعليكم السلام عدك كورو قاعد فضلا ومحمد oo ay ku joogaa سودا محمد waxaan raadi iska dam fadlan waan ka xunaa dhegeystayaasha ka gudbina raadi haddii uu kugu shidan yahay dhegeystayaasha kale ayaan fursad siinaa halo star halo waan ku maqlaa magacaaga halka aad joogto umar salaada liida buraan jooga waa tahay soo dhawow su-aasha jawaabteeda haddii aa haysid soo daa xaalada elizabeth ku soo celi elizabeth maxaa loogu daraa abeed sheeg abeed ma garanayo abeed markaa soo heshid noken haddaba dhegeystayaasha dhinaca facebooka tooska nagala socdo waxaa ka mid ah yaasiin xasan yaash ku magac dheer oo joogo degmada qoryooley injineer cali maxamed diriyo isagana beled xaaway nagala socday dhegeystayaal kaloo badan dal iyo dibadba jooga ayaa isugu jiraan bal marka la fiiriyo dhegeystayaasha su-aashan aan hordhignay qaarkood way isku dayayaan waxaa ka mid ah dhegeysta isagana magac kale soo qora hase yeeshee jawaabta rasmiga aanan bixinin haddaba dhegeystow adigana isku day dhegeysta lagu magacaabo manuzaj manki wuxuu yidhi waa lucy stone waa tahay ma ahan jawaabta la bixiyey sax dhegeysta kale halo star asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga halka aad joogto xuseen ifo soo dhawow su-aasha jawaabteeda betty fredan ku soo celi betty fredan betty fredan fredan oo maxay ahayd haweeneydaas american qoraa ahayd haye aad iyo aad ay mahadsantahay oo ka jawaabtay magacaaga ii sheeg xuseen maxamuud siyaad xuseen maxamuud lambarkaaga meeqo ka bilowda xuseen oo nasiibkaaga ugu gubtay su-aashaas naga gubata hal mar besa lagu ogol yahay inaad ka qayb qaadatid cawada dhegeystaas waan ka xunnahay nasiibkiisa oo gubtay waa dhegeystihii koowaad ee guulaystay fadlan mar haddii aad ku guulaysato isla cawada ma kusoo noqon kartid habeen dambe allah ku gaarsiiyo su-aashaas lambarka labaad waa ay gubatay su-aasha lambarka labaad waxay u dhacaysaa sheeg magaca haweeneydii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqoto hay-adda qaran ee haweenka sannaddii 1966 waxaa lagu magacaabaa betty fredan ayaa lagu magacaabaa haweeneydaasi dalka maraykanka ayay u dhalatay sidaan hore kugu soo sheegayna oo taariikhdeeda aan kugu soo dulmaray waxaan kuu sheegay in ay dhalatay 4 bishii febraayo ee 1921 halka lagu magacaabo Peoria ee Illinois ee dalka Mareykanka ay ku dhalatay isla taariikhdii ay dhalatay oo kale ayay geeriyootay oo 4 bishii labaad ee febraayo 2006 magaalada xarunta caasimadda dalka Mareykanka ee Washington DC ayay ku geeriyootay waxayna u dhaxaysay nin lagu magacaabo Carl Freedan oo isguursadeen 1947 ilaa 1969 jaamacadda lagu magacaabo ee California ayay ka soo baxday waxyaabaha caanka ah ee qortay waxaa ka mid ah laga soo xigtay haweeneydaasi duqnimada waxay tiri da'da oo weynaato ma ahan in dhallinyaranimadii seegtay ama gaftay ama ay ku dhaaftay laakiin fursad cusub iyo awood cusub ayaa kula soo darsaysa oo la soo baxaysa waxyaabahaas ay ka mid ah waxyaabaha ay qortay haweeneydaasi ay ka tagtay dhaxalka u ah dunida aanu ku dhaafan intaasi su-aashaasi su-aasha kale ay xigtay ee lambarka saddexaad aan soo qabto dhegeysta waxaa sheegtaa magaca qofkii Ameerika joogay ee qoray sannaddii 1774 buuggii la oran jiray ma jiro nin
fikiraayo ama qof fikiraayo no thinking man kaasi oo madax bannaani ka rabay dowladda ingiriiska waxaa sheegtaa nin u dhashay dalka maraykanka oo sannaddii 1747 qoray buuggii la oran jiray no thinking man ma jiro nin fikiraayo ama qof fikiraayo marka qaarkood englishka man marka la yiraahdo bini'aadamka laga wadi karaa rag iyo dumar way noqon karaan haddii la doonana nin keli waa loola jeedi karaa qofkaasi shakhsigaasi nin ama dumar ha ahaado oo madax bannaani ka rabay dowladda ingiriiska waxaan kaa rabaa magaca sannaddii nin ama dumar haweeney ama nin sannaddii 1747 laga soo xigtay ereyada ama buugga qorday ma jiro nin fikiraayo ama qof fikiraayo no thinking man kaasi oo madax bannaani ka rabay dowladda ingiriiska hello star fm hello magacaaga halka aad joogto magacayga Yusuf Abdullah joogo magaalada Ramo haye soo dhawow Yusuf su-aasha jawaabteeda waa tahay adigan sidaasay kugu dhaaftay hello star magacaaga halka aad joogto waa kalmoy soo daa George Washington ku soo celi George Washington muxuu ahaa waa ninkii ugu horreeyay oo qoray buugga muxuu ahaa marka ninkaas waa qoraagii qori buuggii yani xorriyadda loogu doonaya ingiriiska sanadka maxaa kaloo lagu yaqaanaa ninkaas saynisyahan ayuu ahaa qaybtu ku saabsanaa saynisyahankaasi wallahi qaybaha kale kama sii kasay laakiin waxaan u malaynayaa madaxweynihii ugu horreeyay oo maraykanka soo maray inuu mar noqday adiga marka taariikh kale faahfaahin kale kama hayo aad iyo aad waa mahadsan tahay intaasaan kaa rabay madaxweynaha inaad sheegtid magacaaga ii sheeg aadan aniga waxaad yidhahdaa cabdinaasir kaalmooy maxaa lagugu daraa cabdinaasir cabdiraxmaan kaalmooy xagee joogtaa mandheera haa aye khad ku jir يهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر يزغرد كل ما في cabdinaasir kaalmooy ayaa ka jawaabay su-aashaasi lambarka saddexaad ee u dhacaysa sida tan waxaa sheegtaa magaca qofkii ameerika joogay ama ameerikaanka ahaa ee qoray sannaddii 1747 buuggii la oran jiray ma jiro nin fikiraayo ama qof fikiraayo no thinking man haddii sidaas aa qortid iyadoo inglisha qofka magaciisaaba kuu soo baxay kaasi oo madax bannaani ka rabay dowladda ingiriiska ninkaasi wuxuu ahaa George Washington wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay dalka maraykanka wuxuuna ahaa halgamaa askari ahaa wuxuuna dalka maraykanka madaxweyne ka soo noqday intii u dhexaysay 1789 ilaa laga soo gaaro 1797 wuxuu dhashay 22 bishii 2 ee Febraayo 1732 Virginia gobolka lagu magacaabo ee dalka maraykanka ayuu ku dhashay wuxuu geeriyooday 14 December 1799 halka lagu magacaabo wuxuu ku geeriyooday Mount Vernon oo Virginia ka tirsan waxaana u dhaxaysay haweeney lagu magacaabo Martha Washington oo isguursadeen 1759 ilaa 1799 وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتها isagana waxyaabaha xasuusta leh laga hayo ee laga soo xigtay waxa kamid ah hadii xornimada ee ka qaalib noqoto aamusnaanta hadii xornimada hadalka lagu raadinayo ka qaalib noqoto aamusnaanta waxa laga yaabaa in noola hogaamiyo sida lax oo kale sida idaha oo kale in noola hogaamiyo idahaasi oo loo wado in la gowraco ereyadaas ka mid ah ereyadii George Washington ee madaxweynihii ugu horreeyay dalka maraykanka uu caanka ku ahaa haddaba su-aasha kale xigtay afaraad haddii aan soo qabto dhegeysta waxaa sheegtaa waddanka ee gawaaridiisa isticmaalaan taarikada caalamiga ah ee WG waddanka
gawaaridiisa ama baabuurta waddankaasi laga leeyahay ee isticmaalaan taarikada caalamiga ah ee WG. taariko haddii English aan ku sheego hadda ayaa Google aadaysa oo ka raadinaysa marka taarikadaas leha inoo joogto oo jawaabta ayaa soo baxaysa haddii af qalaad aan ku sheegano ama English aan ku sheego. taarikada haddii af Soomaali aan ku sheego jawaabta English haddii aan ku sheego way soo baxaysaa. aan ka gudbee sheeg waddanka ay gawaaridiisa isticmaalaan taarikada caalamiga ah ee WG ama waga waa dalkee. eber 7 eber 2 3 5 eber eber 9 eber eber 7 8 hal eber 5 hal eber 5 dhegeystaha ku jira Star FM. Hello magacaaga halka ay joogto. Cumar soo dhawo su'aasha jawaabteeda. waa tahay mar kale ayaa la soconaysa aan kugu celin doonaa su'aasha hadda ayaaban ka soo baxay laguma celin karo dhegeysta kale aan sii. Hello Star FM. Hello dhegeystaha khadka ku jira ee doonaya inuu ka qayb qaato. Assalaamu calaykum. magacaaga halka aad joogto buuqa ku dhex jirtaa. magaca ku maqlaaya magacaygu waa Cabdiqafaar waxaan joogaa Nairobi. Cabdiqafaar soo dhawo su'aasha jawaabteeda. waddankaas haddaan isku dayo waa dalka Maraykanka. maxaa ka jawaabaysaa su'aal noocee ah? waxaa tiri waxaa jirtaa waddanka ay u badan yihiin taarikada. waa tahay mahadsan tahay Cabdiqafaar oo magaalada Nairobi jooga ayuu kaasi ahaa. isku day wanaagsan ma haysid dhegeysta kale aan sii. Hello Star Khalid mar kale soo dhawo su'aasha jawaabteeda isku day. Japan. Khalid oo mar kale ma haysid waa mahadsan tahay. isku day wanaagsan ayaanu ku leenahay dhegeysta kale aan siiyo. Hello Star FM. Hello waan ka xumahay dhegeystaha si dhegeysta kale ayaa khadka ku jira Star FM. Hello assalaamu calaykum magacaaga halka aad joogto. Star FM. Hello dhegeystaha khadka ku jira. Alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaaga halka aad joogto dhegeyste. Maxamed Xasan Cabdi. xagee joogta? hay maxamed soo dhawo su'aasha jawaabteeda. jawaabteeda waddanka isticmaala Soomaaliya. aad iyo aad ay u mahadsan tahay. ma haysid adigana WG Soomaaliya maxay isticmaashaa talo. Hello Star. waxaa waaye waa Cabdiqaasin oo Gaarisa joogo. Cabdiqaasin haye waddankaas waxaan dhihi lahaa waa waddanka Wales la yiraahdo. Wales inta ku yaala Ingiriiska. Great Britain. ma haysid waa mahadsan tahay. isku day wanaagsan laakiin Waleska su'aal ayaa ka soo socota oo barnaamijka ka mid ah hadduu rabbi idmo oo aan gaari doono. Hello Star FM. Hello su'aalahan meel kasta haddii aad ka raadisid way adag tahay inaad soo heshid ilaa qof yaqaano ma ahana. dhegeysto kale oo khadka ku jira aan sii isagana. Hello Star FM. Hello magacaaga halka aad joogto waan ku maqlaa. Cabbaas joogo Mandera. Cabbaas haye soo dhawo su'aasha taagan jawaabteeda ma haysaa. waxaan dhihi lahaa yani China. Shiinaha miya? ma haysid waa mahadsan tahay. isku day wanaagsan dhegeystaha kale xiga khadka ku jira Star FM. Hello magacaaga halka aad joogto. waan ku salaamayaa waa mahadsan tahay waan kaa qaaday. magacaaga halka aad joogto. waa tahay waan ka xumahay dhegeystahaasi khadka ayaa ka helaya. waxaan se u rajaynayaa mar kale inuu soo beegsado si uu uga qayb qaato barnaamijka balse dhegeystaha kale xiga khadka ku jira. Hello Star. وعليكم السلام عبد المالك بن الحوجة. عبد المالك soo dhawo su'aasha taagan jawaabteeda. haddii jawaab aadan haynin dhegeystayaasha kale fursadda sii fadlan. Hello Star. magacaaga halkaa ku sugan tahay. waan ku maqlaa. magacaaga halka aad joogto. waxaa dhegeystayaas wayna maqli laayahay annaga waa maqalnaa. dhegeysta kale aan siiyo oo isagana khadka ku jira. gordona nasashada ayaan aadi doonaa. su'aasha lambarka 4 ayaana taagan halka su'aasha lambarka 3 ay ahayd mid markaasi gubatay. Hello Star FM. Hello assalaamu calaykum magacaaga halka aad joogto. soo dhawo su'aasha jawaabteeda. Pakistan. ma hubtaa? waa isku dayeysaa mahadsan tahay. ma haysid. Hello Star
star fm halo waan ka xumahay raadi haddii uu kugu dheer yahay waan kaa gudbaynaa halo star fm halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacayga halkaa ku sugan tahay وعبد الرحمن عبد الله محمد وجه وحرد إيسو. soo dhawow bal su-aasha jawaabteeda haddii haysid cabdiraxmaan hore u gal waxaan dhihi lahaa waddanka ingiriiska. haye ma hubtaa England. aad iyo aad ay umahadsan tahay ma haysid adigana isku day wanaagsan dalka ingiriiska ma ahan iyo weliba dal u dhow toona dhegeysta kale aan siiya halo star السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انجينير برو سودا جزيرة جرناطة اللي راح جرناطة. جرناطة حقيقة كنت على ولا له أنا كنت على كريدي مية مهبطة هو انجينير برو انت كنت جوابت ولا له ما بس قد كو سامح وين waa dhan waan hay caawad maanta haye dhamaanta daaysid way soo socdaan hal mar bisa lagu ogolay caawada engineer baro khadka igu jira lambarkan ka qoray mar hore ku guuleysatay Soomaan maanta caawa ku guuleysatay mar hore ku guuleysatay engineer baro lambarkaaga horaan aan kugu soo direynaa sheeg magaca ku qorna Suleymaan Xasan Jaamac habeenkii magacaaga la maqlay Suleymaan Sheekh Xasan Jaamac miya oo jooga dhagaxley Sheekh Xasan Jaamac dhagaxley waa tahay engineer baro waa mahadsantahay oo bixi kartaa engineer baro ayuu kaasi ahaa oo xirada qaxootiga dhagaxley nagala soo xiriiray su-aasha lambarka afraad ayuu naga horleexiyey waxay u dhacaysay sheeg waddanka ay gawaaridiisa isticmaalaan taarikada caalamiga ah ee WG taarika English waxaa lagu yidhaahdaa number plate waa number plate talo number plate waa number plate lambarka gaariga hor iyo gadaalka ka dhagan ama shabada gaariga lagu aqoonsado ee number plate-ka lagu magacaabo number plate lambarkaasi taarikada af Soomaaliga lagu yiraahdo waxa isticmaalo dalka yar ee Grenada oo ah jasiirad faahfaahin yar haddii aan ka siiyo dalkaasi wuxuu ka tirsan yahay Caribbean-ka waxaana uu ka kooban yahay jasiirado fara badan Grenada-na lagu magacaabo sidoo kalena waxa ku hareeraysan gabigiisaba jasiirado waddankaasi caasimadiisa waxaa la yidhaahdaa St George ama St George ayaa lagu magacaabaa dadka ku nool dalkaasi tiradooda waxaa lagu sheegay sida bangiga adduunka ee World Bank tirakoobka uu sameeyey sanadii 2016 dadka dalkaasi ku nool tiradooda waxaa lagu sheegay 107,317 qof 107,317 dadka Gaarisa ku nool magaalada Gaarisa kali ayaa ka badan dadkan qaaradda uu ku yaalana waa qaaradda America intaas ayaan ku dhaafaynaa dalkaasi su-aasha kale xigta goordhow u diyaar garooba hadduu rabbi idmo وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها dhegeystow su-aasha lambarka shanaad waxaa sheegtaa magaca markabkii gujiska ahaa ee ay afduubteen ama qafaasheen kooxo Falastiiniyiin ah ama koox Falastiiniyiin ahayd oo argagixiso lagu tilmaamay iyo taariikhdii afduubkaasi uu dhacay ha ka reebin dalkii laga lahaa markabkaasi hal ka mid ah su'aalahaasi isdul saaran isku lamaanan haddii aad ka tagto dhegeysta nasiibkaaga uu ka guban doonaa su-aashaas ma aadan ku guulaysan su-aasha waxay u dhacaysaa sheeg markabkii gujiska ahaa ay afduubteen koox Falastiiniyiin ahayd oo argagixiso lagu tilmaamay waa su-aasha koowaad taariikhdii afduubka u dhacay waa 2 markabkaasi waddanka laga lahaa waa 3 magaca markabka markaa sheegtid taariikhdii afduubka u dhacay iyo waddankii markabkaasi iska lahaa ayaa ii sheegaysa waa eber 7 eber 2 3 5 eber eber 9 eber eber 7 8 hal eber 5 hal eber 5 halo istaa Umar Isaaq xagee Hareeri Mandara haye Umar Isaaq soo dhaw su-aasha jawaabteeda
markabka waxaa la yidhahdaa almiisaan. almiisaan xagee laga lahaa? waxaa laga lahaa Pakistan meesha wadankee laga lahaa? wadanka laga lahaa ii sheeg. wallaahi wadanka ma aqaan laakiin markab magaciisa fiicnaa almiisaan. almiisaan miya? haa waa tahay ma haysid almiisaan iyo wax u dhowtoona ma ahan. dhegeysta kale aan siiyo laakiinse isku day wanaagsan oo ku mahadsan tahay. hello star FM. Hello. magacaaga halka aad joogto? waa Iraan Cabdijoojo magaalada Ramos. haye Ibrahim soo dhawow su-aasha taagan jawaabteeda. jawaabta taagan oo markabka waxaa laga lahay magaalada oo Pakistan. magaalada Pakistan miya? Pakistan magaalo miya mise waa wax kale? haye magaalada aad iyo aad mahadsan tahay. markabka magaciisa? markabka magaciisa baa iga yar maqan. waa taa markaad soo heshid nookan. Pakistan waa wadan ama dal ma ahan magaalo. hello star FM. hello magacaaga halka aad joogto? aan ku maqlaa magacaaga halka aad ku sugan tahay? waa Abdullahi ku sugan magaalada Mandera. Cabdullaahi su-aasha taagan jawaabteeda. hello star dhegeystaha khadka ku jiro. star FM. hello waan ka gudbaynaa dhegeystahaas isagana. dhegeysto haddii su-aasha jawaabteeda taqaanid ka qayb qaada barnaamijka. haddii aadan aqaanin dhegeystayaasha ka sug oo khadka sii fursad haga ciriirin. hello star FM. hello waa tahay dhegeystahaasi codkiisa waa uu hooseeya. dhegeysta kale aan sii star FM. hello assalaamu calaykum. su-aalaha waxaa moodaa inay yihiin kuwa adag oo dhegeystayaasha ay isku dayi karin haddii asxaabta magacadooda ahaan lahaayeen mid unba iska sheegaan la qof walba. hello star. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقع بلاك ديحلي. بلاك ديحلي وي. سودو بلاك سودا. مركب كوالي هذا. ها. MS أجيلو لورو. كوسو علي. MS أجيلو لورو إنه هذا إن شاء الله. هاي حاجة لقلها ودن كه؟ ودن كترياني قال لقلها. هاي. وحال أخذوي 7 أكتوبر 1986 مركبك مقعيسة تري MS أجيلو لورا NS أجيلو لورا ها واتا لورو أجيل لورو يا يس انت بلاك انت كنت هذيك انا جاوبتن ديان هلي واك جاوبت ها وكل ومعنا دادي هيت هي بلاك مقعة وستحني شيك محمد جلحيش محمد جلحيش oo jooga dhagaxley adeeg engineer baro cawada meesha ka soo xadeyn waan garan lahaa ilaa hadda waa tahay lambarkaaga hor ma u guuleysatay oo keedka ma ka baari karaa soo booda lambarkaaga waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa balaag oo xerada qaxootiga dhagaxley jooga oo ku jawaabay isagana su'aashaasi su-aasha taagan ayaa waxay u dhacaysaa sida tan dhegeysta waxaa sheegtaa markabkii gujiska ahaa ay afduubteen ama qafaasheen koox falastiiniyiin ahayd oo argaxiso lagu tilmaamay iyo taariikhdii uu afduubkaasi dhacay sidoo kale waxaa sheegtaa dalkii ama waddankii laga lahaa markabkaasi waxaa ka jawaabay maxamed jaalixiish oo ku magac dheer balaag oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley qaybihii dambe barnaamijkana waan soo gaarnay jawaabta haddii aan ku siiyo dhegeystow markabka waxaa lagu magacaabi jiray achille lauro dalka talyaaniga ama italy ayaa laga lahaa bishii 10aad ee Oktoobar 1985 ayaa la afduubtay afduubkaasi wuxuu dhacay sanadii 1985 bishii 10aad ee Oktoobar waxaana markabkaasi lagu magacaabi jiray
achiil lowro dalka talyaaniga ma italy ayaa laga lahaa تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها بكف waa hagaag intaasaan ku dhaafno su-aashaasi lambarka shanaad haddaba dhegeystow su-aasha kale ee xigta haddii aan soo qabto waa su-aasha lambarka lixaad ee xigta sheeg magaca gobolka lagu aasay saynisyahankii caanka ahaa ee la oran jiray John F Kennedy waxaa sheegtaa saynisyahankii caanka ahaa ee la oran jiray John F Kennedy gobolka lagu aasay waa tahay waxaan kaa sugaaba waa John F Kennedy gobolka lagu aasay ninkaasi saynisyahanka caanka ahaa waa eber 7 eber 2 3 5 eber eber 9 eber eber 7 8 1 eber 5 1 eber 5 halo ista السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الله وعبد الله رجل ساق عبد الله يوم السلام ما حسنت عبد الله سو دو سؤال جاوبته اي سودا كحما هذا استاسي لما سocdaan filaya barnaamijka halo ista halo magacaaga halka halo waan ka xumay dhegeysta kale aan sii halo ista FM assalaamu calaykum magacaaga halka aad joogto maxamed soo dhawo su-aasha taagan jawaabteeda nigeria gobol miya mise waa wadan waa mahadsan tahay isku day wanaagsan bal dhegeysto kale aan siiyo halo ista magacaaga halka aad joogto maxamed soo dhawow su-aasha taagan jawaabteeda madiina miya aad iyo aad ay umahadsan tahay su-aasha taagan mar kale haddii aan kugu celiyo dhegeysta waxaa sheegtaa saynisyahanka caanka ah ee saynisyahanka caanka ah ee la oran jiray ama lagu magacaabi jiray John F Kennedy gobolka lagu doogay ama lagu aasay halo ista halo assalaamu calaykum وعليكم السلام عبد الله بل سؤاشاس ka jawaab su'aasha markan igu celiba John F Kennedy saynisyahanka la dhihi jiray gobolkee lagu aasay ma haysid waan ka gudbayna adigana bal dhegeysto kale aan siiyo isagana khadka ku jiro dhegeysto waxa ogaataa xasuusnaataa su-aashan waa Eldoof haddaba waa Eldoof su-aasha iska hubi halo ista وعليكم السلام magacaaga halka aad joogto عثمان عبد المنير جوي عثمان soo dhawow hore u gal su-aasha jawaabteeda أنا مرينا أرلينغتون kusoo celi arlington maxaa waa arlington ماشي lagu aasay arlington intee ku taala أنا مرينا waa mahadsan tahay adigana ma xasuusatid dhegeysto kale aan siiyo halo ista halo assalaamu calaykum maxamed oo jooga yaxley maxamed hay soo dhawo jawaabta su-aasha dankale waxaa waaye gobolka virginia qabuuraha arlington ku soo celi waa virginia stateka virginia stateka virginia xaguu ku yaala maraykanka ninkan muxuu ahaa saynisyahanka hore ma ka haysaa
ya ninkan John F Kennedy saynisyahankan ilaa iyo muddo meequu saynis ku dhex jira wallahi in badan buu ku dhex jiray laakiin inuu soo mara unay madaxweynaha maraykanka inuu madaxweyne maraykanka ahaa Kennedy waa ka jawaabtay madaxweynuhu ahaa saynisyahan ma ahayn su-aasha ilduuf ahayd magacaaga magaciga cawaale maxaa lagu daraa saddexan sheeg ya magacaaga saddexan rabo magaciga saddexan wato bobsi maxamed cawaale maxamed cawaale maxaa lagu daraa maxamed cawaale cabdullaahi xagee joogtaa dhaxley maxaa jooga dhagaxley waa tahay lambarkan kaa qoraya qadka ku jir في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون وطهاي أخيرتان وجعلنا هيدا جيستاسي محمد عوالة عبد الله وجوجا حرادة قحوتيجا دقاحلي أيا كجوابي سؤال شاسي لمبر كشناد أيو كجوابي سؤال شو حيود عيسى سيدتان مركا كواد waxay ahayd sheek magaca gobolka lagu aasay saynisyahankii caanka ahaa ee la oran jiray John F Kennedy su'aashu waxay ahayd ninkii caanka ahaa ee saynisyahanka ahaa ee la oran jiray John F Kennedy sheek gobolka lagu aasay ama state-ka haddaba dhageysta horena kugu sheegay su'aashu waa ilduuf ee siday tahay ha u qaadan John F Kennedy ma ahayn nin saynisyahan ah wuxuu ahaa nin madaxweyne ka soo noqday dalka Mareykanka waxaana lagu aasay sida uu dhageystahaasi ka dhawaajiyayba gobolka Virginia lagu magacaabo ee dalka Mareykanka madaxweynihii 35 ee dalka Mareykanka soo maray ayuu ahaa John F Kennedy John F ta waxay ka taagan tahay Fitzgerald Jack Kennedy waa John Fitzgerald Jack Kennedy waxaana loo soo gaaban jiray JFK dalka Mareykanka ay ku dhashay wuxuu ahaa siyaasi rugcada ah oo isla markaasii magac ku leh dalka Mareykanka dhinaca kalena madaxweynihii 35 ee dalka Mareykanka soo maray ayuu ahaa wuxuuna xukunka iyo talada dalka Mareykanka hayay laga soo bilaabo sanadii 1961 ilaa laga kharijiyo oo laga dilo taariikhda markay ku beegneed 22 bishii 11 ee November sanadii 1963 waxaana lagu khaarijiyay oo lagu dilay gobolka state-ka lagu magacaabo Dallas ee Texas ka tirsan ninkaas la dilay John F Kennedy waxa uu dhashay 29 bishii shanaad ee May sanadii 1917 wuxuu ku dhashay halka lagu magacaabo Brookline ee Massachusetts ee dalka Mareykanka waxa u dhixi jirtay haweeney la oran jiray Jacqueline Kennedy Onassis oo ay isguursadeen 1953 ilaa 1963 ay isqabeen waxay isku dhaleen caruur fara badan caruurtaas oo lagu magacaabo John F Kennedy Jr Caroline Kennedy Patrick Bovia Kennedy waxa iyaga la dhashay John F Kennedy waxa la dhashay Robert F Kennedy Ted Kennedy Rosemary Kennedy iyo kuwa kale badan ayaa la dhashay waxyaabaha laga soo xigtay ee caanka uu ku ahaa waxa kamid ah waata iyadoo Ingiriishan shay gaaray wuxuu dhihi jiray muwaadiniinteeda Mareykanka ahoo adiga waxa wadanka uu ku qaban kara ma ahan laakiin waa ina fiirisid adiga wadanka waxa uu qaban kartid wuxuu sidoo kale dhihi jiray isbedelka waa sharciga nolosha waxyaabahaas ay kamid ah waxyaabihii John F Kennedy uu ku soo caanbaxay uu oran jiray iyagoo afqalaada ayaan ku dulmaray dhageysto nasasho kadib su'aasha kale xigta ayaan gudageli doonaa hadduu allaha awoodda la ogolaado bal aan soo qabto qadaro dhankaasi iyo nasashada ah idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ayaa dhageysto inagala socota oo aad inagala janqaadaysa
Star FM waa warbaahinta kaliya ee mar walba u taagan u adeegada dhagaystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan iyadoona u kala eexinayna kuna tixgelinaysa hadba deegaanka ay ku sugan yihiin shaqaalaha Star FM waxay dharaar iyo habeen walba u helayeen oo ay ka fikiraan sidii ay kugu soo gudbin lahaayeen warar sugan iyo barnaamijyo tayo sare leh oo marnaba dhagtaysan ka ag fogaanaynin raadiyaha idaacadda kala janqaadaysid waxaa intaasi kuu sii dheer inaan ku faraxsanahay inaad 12 sano saaxiib nala tahay oo aad inagu kalsoon tahay dhagaystow waxaan leenahay wariyaal aqoon sare leh oo kugula sugan deegaan walba oo idaacadda aad ka dhageysatid kuwaasi oo mar walba kuu soo gudbiyo dhibaatooyinka iyo horumarada aad gaartay si dadka ay qusayso ay u helaan Star FM dhageystayaashaada maxaa u haysaa dhageystayaashayda waan jeclahay shaqaalahaagana sidoo kale iyaguna waan jeclahay haddaba mar walba wehelkaaga ka dhigo Star FM codka gobolka waqooyi bari ma doonaysaa in lagaaga warramo deegaanada aad u dhalatay sida Nairobi ilaa New York, Beledweyne ilaa Baydhabo, Darfur ilaa Dhadhajabola, Lafay ilaa Lagboqol, Mandera ilaa Manyafuulka, Gubbada ilaa Banka Jiro, Buurdheer ilaa Takaba, Moyaale ilaa Mombasa, Doble ilaa Dadaab, Kulan ilaa Kismaayo, Xagar ilaa Xagarbuul, Balad Xaawo ilaa gobolka Saday. Star FM baa ku joogto sirta dunida ayay safka hore kugu keentay. He, she, it, and they are all Star FM listeners. Star FM, the voice of Northeastern Kenya. Star FM, codka gobolka waqooyi bari. Warbaahinta wacan loo bogay. Five, four, three, two, one. Ladies and gents. Ma tahay ruux caajisay oo ku daalay shaqada? Ma tahay qof cidla dareemay oo wehel u baahan? Idaacadda Star FM waa hormuudka idaacadaha. Meherad walbo ayay ka daaran tahay oo lagama damiyo waa ay ka shidan tahay. Star FM liskuma hayo in ay tahay leerka laabte ee waxaaba intaasi u sii dheer in ay tahay libaaxa leerta jiifo. Libaaxa leerta jiifo. haddaba mar walbo wehelkaaga ka dhigo Star FM warbaahinta wacan loo bogay Star FM codka gobolka waqooyi bari ma iga hubtaa in warbaahinta Star FM ay tahay wehelkaaga dhabta ah oo aad dhageysato xilliga aad shaqada ku jirto amaba aad naftaada u raaxaynayso oo aad nasasho heer sare ah ku jirto miyay ku siisaa warar loo bogay oo waqti dheer iyo maskax baa la geliyay madadaaladii ma ku dheer tahay oo cayaarihii ma ka dhugataa daruustii diiniga iyo casharo nacfi leh ma kuu soo daaysaa xayisiimo xigmadaysan oo aan saxar lahayn ma kuu sahashaa barnaamijyo aad ku waabaraysato barqadii iyo duhurkii aad dayn karin iyo kuba habeenkii aad la'aantooda ahaani karin ma ku siisaa jawaabtaada haddii ay haa tahay haddaba dhegaystow kaama maaranne karaamada alle dushaada ha ahaato daba dhegaystow kaama maaranne karaamada alle dushaada ha ahaato Star FM warbaahinta wacan loo bogay Star FM codka gobolka waqooyi bari hubiya 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 hagaaga khayrtaan oo jecelnahay haddii aan mar kale dib isugu soo noqono waxay nagala socotaa oo inaga dhageysanaysaa iyo dhammaantiinba inaga dhageysanaysaan idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari muujadaha fiimada kala gadsan ayaa si toos ah inagala jaanqaadaysaan iyo barta Facebook aan ku leenahay خطوة من صغرها وبقناعتها ارتاحت جد
barnaamijka tartanka ramadaanka ee dhegeystayaasha ayaanu ku guda jirnaa oo si toosa idinkaga imaanaya stuudiyaha dhexe xarunta weyn ee magaalada Nairobi idaacadda Star FM ee ku leedahay. waxaanu ka soo gudubnay ama ka soo farxalanay su'aalo dhowr ah weliba 6 su'aalood ayaanu ka soo gudubnay. 6da su'aalood sidoo kale ahaayeen jawaabahooda haddii aan wax yar ku dulmaro. su'aasha koowaad waxay u dhacaysaa sheeg magaca muwaadinka caanka ah ee reer Germany ee hubka qumra dunya ama nuclear-ka ka yiri haddii aan ogaani lahaa waxaa noqon lahaa saacad sameeye. ninkaas waxaa la oran jiray Albert Einstein. waa Albert Einstein. su'aasha labaad waxay ahayd sheeg magaca haweeneydii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqotay hay-adda qaran ee dalka Mareykanka ee haweenka sanadii 1966. haweeneydaasi waxaa la oran jiray Betty Friedan. waa Betty Friedan. lambarka saddexaad sheeg magaca qofkii Ameerika joogay ee qoray sanadii 1774 buuggii loogu magac daray ama la oran jiray ma jiro nin fikiraayo ama qof fikiraayo ama no thinking man kaasi oo madax banaani ka rabay dowladda Ingiriiska. ninkaasi waxaa la oran jiray George Washington wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Mareykanka. su'aasha lambarka afraad waxay u dhacaysaa sida tan sheeg waddanka ay gawaaridiisa isticmaalaan taarikada ama number plate-ka caalamiga ah ee WG loo soo gaabsho. waxaa sheegtaa waddanka ay gawaaridiisa isticmaalaan ama adeegsadaan taarikada ama lambarka iyo shabadda gawaarida lagu dhajiyo astaanta hor iyo gadaal looga shabadeeyo number plate-ka afka qalaad lagu yiraahdo ama taarikada ee WG loo soo gaabiyo. waa dalka yar ee Grenada. waa jasiirad qaaradda Mareykanka ayayna ku taala ama Ameerika. lambarka shanaad sheeg magaca markabkii gujiska ahaa ay afduubteen ama qafaasheen koox Falastiiniyiin ahayd oo lagu tilmaamay iyo taariikhda afduubkaasi uu dhacay dalkii laga lahaa markabkaasi. su'aalahaas isku lamaanan jawaabahooda waxay kala ahaayeen markabkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Achille Lauro. dalka Talyaaniga ayaa laga lahaa ama Italy. afduubkana wuxuu dhacay 1985 bishii 10aad ee Oktoobar. su'aashii ugu dambeysay hadda aanu ka soo farxalanay ama ka soo gudubnay waxa iyadana ay u dhacaysa sida tan dhageysta waxaa sheegtaa magaca gobolka lagu aasay saynisyahankii caanka ahaa ee la oran jiray John F Kennedy. jawaabta waxay ahayd John F Kennedy ma ahayn saynisyahan ay wuxuu ahaa madaxweynihii dalka Mareykanka soo maray weliba gaar ahaan madaxweynihii 35aad ee dalkaasi. su'aasha toddobaad ee hadda taagan su'aasha hadda taagan intaanan soo qabanin waxaan jeclahay qodobada wararka caalamka ee weliba gaar ahaan dalka Soomaaliya ugu doorkaroon in aan soo qabto. ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay in shacabka loo soo celiyo awoodda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta ka qayb galay shir ee magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ku yeesheen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in shaqada dhabta ah ee guddiga ay xilligan bilaabatay loogana baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gudbiyaan wadooyinka ugu habboon ee loo marayo doorashada dalka Soomaaliya ka dhacayso sanadda 2020 maadaama shirkii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay lagu qabtay dhawaan lagu soo ogolaaday ama lagu ogolaaday laguna heshiiyey in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka Soomaaliya marka la gaaro xilligaasi. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yari ayaa ugu horreyn uga mahadnaqday ra'iisul wasaaraha sida ugu habboon ee ugu dhiiraday uguna dhiirigeliyey una fududeeyey shaqooyinka la xiriiro arrimaha doorashooyinka waxayna uga warbixisay howlaha ilaa ay hadda u qabsoomay guddigaasi. dhinaca kalena maadaama maalmaha soo socdo ee nagu soo food leedahay ciidul fitriga ama ciidda ramadaanka ka dambeyso ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya wuxuu amray in shacabka loo sahlo loo fududeeyo isku socodka magaalada Muqdisho loona furo wadooyinka haatan xiran. waxa uu sheegay inay muhiim tahay wada shaqaynta dhexmarto ciidamada iyo shacabka. madaxweynaha dalka Soomaaliya oo ka jawaabaya cabashada shacabka ayaa amar ku bixiyay in la furo wadooyinka hadda xiran. waa tahay wararkaasi ayaa socdo aad dhegeysanaysaan bal waxaan ku mashquulsanahay wararka dalka Soomaaliya iyo hal qodob oo kuba caalamka ayaan soo qaban doona goordhow hadduu rabbi idmo. bal warka dhinacaasi iyo xiisada ka taagan Puntland iyo Somaliland haddii aan iyadana isdul taago. guddiga difaaca ee maamul goboleedka Puntland ayaa war murtiyeed ka soo saaray arrimaha dagaalka u dhexeeyo Somaliland iyo Puntland waxaana lagu sheegay in maamulka Somaliland uu wado
wada shaqayn ula leeyahay argagixisada gaar ahaan ururka al-shabaab oo dowladda puntland dagaal ay kula jirto. wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer guuraaga cabdulaahi cali xirse timcad oo warbaahinta la hadlaya ayaa shaaca madaaha ka rogay in somalilan ay wada shaqayn la leedahay kooxda al-shabaab taasi oo dagaal kula jirto soomaaliya iyo dowladda puntland. wasiir timcade waxa uu sheegay in faysal cali waraabe uu difaacay argagixisada ee ku jirto buuraha galgala dagaalkana ay kula jirto difaaca ciidamada dowladda puntland. wuxuuna sheegay war uu dhowaan jeediyey in aanay jirin wax argagixisa oo puntland ee la dagaalamayso balse ay jiraan dad uu faysal cali waraabe ku tilmaamay inuu isaga garanayo taasi oo ka xanaajisay puntland. bal dhinaca kale haddii aan soo qabto ugu dambayn dalka Austria ee ka tirsan midowga Yurub ayaa albaabada u laabay qufulana ku jibeeyay ugu yaraan 7 masaajid oo muslimiinta ay leeyihiin oo dalkaasi ku cibaadeysan jiray waxaana dalkeeda ka tarxiishay dhowr imaam oo wadankaasi imaamo ka ahaa. sababta loo xiray masaajidaasi isla markaana loo tarxiilay shuyuukhda ayaa lagu sheegay in laga hortagayo siyaasadda islaamka iyo weliba goobaha lagu barto waxa loogu yeeray xagjirnimada sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ninka lagu magacaabo Sebastian Kurz. ra'iisul wasaaraha ayaa markaasi sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan loo dulqaadan karin wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga muxaafidka ama conservative-ka waxaana uu dowladda uu sheegay in loo soo dhisay xisbiga ku dhisan ajaanib nacaybka ee FOPO. xukuumadda dalkaasi ayaa sheegtay in arrintan ay tahay bilow oo ay qarka u saaran yihiin ugu yaraan 60 imaam in dalkaasi laga ceeriyo guud ahaan. qodobadaas intaasi aanu ku dhaafnaa khayrta aanu jecelnahay barnaamijka halkiisa aan ka sii wadnee su-aasha lambarka 7 haddii aan soo qabto. dhegeysta waxaa sheegtaa wargeyskii ugu horreeyey ee Yurub laga leeyahay ee daawacay sawiraan faahfaahsan oo ku saabsanaa shilkii gaariga ee ay ku geeriyootay boqoradii la oran jiray Diana ee boqoradii Wales. sidaan hore kugu sheegaba Wales su'aal ayaa ka soo socoto boqoradii dalka Ingiriiska ee la oran jiray Diana. haddii aan kuu soo gaabiyana boqortooyada isu tagga boqortooyada Ingiriiska ee Wales gaar ahaan ayaa geeri ku timid shil gaari oo ay gashay haweeneydii la oran jiray Diana ee boqoradda ahayd ayaa wargeys laga leeyahay dalka Yurub waxa uu daabacay sawiraan faahfaahsan oo ku saabsan ama ku aadanaa shilkii gaariga ee haweeneydaasi gashay. haddaba sheeg jaraa'idkaasi ama wargeyskaasi magaciisa. تبغي عند الله أجرها عند الله تبدي خطوة من صغرها عند الله أجرها نورها في باقي عمرها عند الله أجرها لا بالدنيا قمرها عند الله أجرها في حياها وفي سترها عند الله أجرها ترضي الله من صغرها عند الله أجرها يعلى عند الله قدرها عند الله أجرها. tahay dhegeystayaasha qaadka ku jira aan sii halo Star FM. Star FM halo. Assalaamu calaykum. wa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. cabdalla mar kale ay soo tuurtay soo daa aljazeera miya aad iyo aad ay mahadsantahay aljazeera goormaa la sameeyey dhegeysto kale aan sii oo khadka ku jira isagana aljazeera Yurub ma balga lahan waxaa laga leeyahay qadar dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan sii oo khadka ku jiro si uu su-aashaasi nooga jawaabo. halo Star dhegeystaha xiga khadka ku jiro. halo assalaamu calaykum dhegeystaha khadka ku jira magacaaga halka aad joogto. waan ka xumahay dhegeystahaasi sidoo kale waxaa moodaa in khadka kale ee eber 7 eber 2 3 5 eber eber 9 eber uu mashquulay isla markaasina dhegeystayaasha ay soo wici kareen goordhow ayaan idiin furi doonaa khadkaas hadduu rabbi idma. dhegeystaha kale aan sii halo Star FM halo. su-aasha ugu dambeysa ee lambarka 7 ee hadda taagan hal su'aal ayaan barnaamijka kusoo afmeeri doonaa oo diini ah hadduu rabbi idmo. hase yeeshee su-aashan ayaan ka gudbaynaa marka hore. sheeg magaca wargeyskii ugu horreeyey ee Yurub laga leeyahay ee si faahfaahsan u daawacay sawiraan ku saabsanaa shilkii gaariga ee ku geeriyootay boqoradii la oran jiray Diana ee boqoradii Wales. halo Star magacaaga halka aad joogto.
Abdullahi Mandera joog. cabdullaahi soo dhawow su-aasha taagan jawaabteeda. AFP. AFP. Yes. aad iyo aad ay u mahadsantahay soo dhaweysay laakiin ma haysid wakaaladda wararka AFP ayuu yiri dhegeystahaasi dhegeystahan aan sii kadib telefoonka kalena waa idin furi doonaa hadduu rabbi idmo. Hello Star. waan ka xumay dhegeystahaasi u suurtageli laadahay in uu soo beegsado isla markaasina uu ka qayb qaato su-aashaasi jawaabteeda. aan sii dhegeysto kale oo isagana khadka ku jiro. Hello Star. magacayga halka aad joogto. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرزاق علوة. عبد الرزاق علوة. أي عبد الرزاق سودة. الداني كده وحدي لا ريبوبليك ورجيس يعني كسب لا ريبوبليك اللي رايين يا عمر يعني. واه اسكو دايغا محمو وكما سنتاي ما هذا الشيء dhegeystaasi wuu isku dayay laakiin ma uusan ka jawaabin oo sidii la rabay iyo joornaalkii la rabay toona ma uusan sheegin. waa tahay waan u soo noqon doonaa dhegeystayaasha khadka kale ayaan u furay goordhow hadduu rabbi idmo. وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير. ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر. تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر. وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر. تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر. تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر. يوم أن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبري وترجو رحمة تسري وعاش القلب إخلاص. waa hagaaga dhegeysta qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay goordhow barnaamijka waxaan kusoo afmeeri doonaa hadduu allah awoodda la ogolaado mid ka mid ah taariikhda iyo siirada asxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayaan kusoo afmeeri doonaa. hase yeeshee su-aasha taagan mar kale kugu celiya si aan uga gudubno. labada telefoonna way shaqaynayaan. sheeg magaca wargeyskii ama jariiradii ugu horreysay ee laga leeyahay dalka Yurub ee daawacday sawiraan faahfaahsan oo ku saabsan shilkii gaariga ahaa ee ku geeriyootay boqoradii la oran jiray Diana ee boqoradii Wales. lambarada khadadka tooska ah dhegeystayaasha way ka qayb qaadan karaan. dhegeystaha ku jira si hello Star FM. hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمود وجه ومندرة. مختار سودة. دانش خدبة. هيه. كايترس. رويتاس ما كودا. ها. aad iyo aad u mahadsantahay ma haysid. isku day wanaagsan Facebook waxa lagu soo qoran oo ku sheegi doona haddii rabbi idma dhegeysto kale. hello Star. oo ka faa'iideysan way dhegeystaasi dhegeyste lagu magacaabo Sadar Yare wuxuu yiri Jomatis weeyaan. dhegeysto kale wuxuu yiri waan idin salaamay Star FM waxaa lagu magacaabo Manuzach Manke CNN ayuu yiri isagana. waa tahay dadka qaarkood wargeysadii iyo idaacadihii iyo warbaahinadii iyo wixii isaga qasan iyo wakaaladihii wararka. waa tahay bal arrintaasna xal waa u heli doonaa hadduu rabbi idma dhegeysto kale. hello Star. magacaaga halka aad joogto. cabdi faarax joog kwaale. ku soo celi. cabdi faarax joog kwaale. haye cabdi faarax soo dhawo su-aasha jawaabteeda. Associated Press. AP. Associated Press ma haysid. waa mahadsan tahay cabdi. isku day wanaagsan laba dhegeystaan si waan ka gudbaynaa. hello Star. Abash oo jooga Mandera. soo dhawo soo daa. waxaa la oran jiray cases laabtan oo America leeyahay. maxaa la oran jiray
kaysas laatan kaysas laatan ma haysid waa mahadsan tahay isku day wanaagsan adigana dhegeysto kale halo star halo assalaamu calaykum star fm halo halo السلام عليكم. وعليكم السلام حاج أنقلي حاجة أقول لي مثلا سودا جريت كاس دانس كان ديلي نيشن على يوكي ديلي نيشن ديلي نيشن كي laga lahay walaal ku kala ma jiro waa mahadsan tahay daily telegraph the telegraph waxa maqli jiray ingiriiska dhegeystaan kale halo star waan ka xumahay dhegeysta kale aan siiyo halo star fm dhegeysta khadka ku jira uu ka faa'iideysan waa isagana siirada asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam mid kamid ah ayaan soo qaban doona gordho hadduu rabbi idmaha se yeeshee dhegeystayaasha khadka ku jiro labada dhegeyste ugu dambeeyo star fm halo halo star fm halo assalaamu calaykum kalmooy isqalii jawaabta sheeg jawaabta ma ka hor qaadi karaa dadweynaha waa ku guulaysato soomahan mar hadda ku guulaysata maya marka dadweynaha ka hor qaadi karaa aad baad mahadsantahay waa mahadsan tahay halo star dhegeystaha khadka ku jira star fm halo star fm halo halo salaam calaykum assalaam raadi iska dami fadlan jarida guardian wadankee greece waa mahadsan tahay ma haysid dhegeystaha ugu dambeeya aan siiyo halo star السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga halka ay joogto نوردين حسن وينيه wardino xagee يحلى jawaabta independent 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 waa tahay the independent ma ahan journaalka xurriyadda lagu magacaabo ma ahan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay isku daygaaga wanaagsan iyo sidaa isugu dayday in aad ka qayb qaadatid hase yeeshee ma haysid su-aashaasi jawaabteeda waana ku mahadsan tahay waa tahay bal waa tahay dhegeystahaasi intaanan ka gudbin su-aashaas halo star calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed haajir nuur oo dhagax leh joogo magaca markaan sheego waxaa la yidhahaa time magazine time magazine ha wadanka faransiiskooda ku yaala aad iyo aad ay umahadsan tahay ma haysid dhegeystayaasha fariinta dhegeystayaasha khadka tooska intaasaan ku dhaafno bashiir cabdi baalle dhegeysta lagu magacaabo dhanka facebooka barnaamijka kaga qayb qaadanaya wuxuu yiri CNN waaye dhegeysta kale mar kale wax kale soo qoro ka gudbeynaa dhegeysta kale wuxuu yiri isagana waa Shafi M Kahin Sky News ayaan filayaa in uu ahaa ayuu yiri dhegeystahaasi isagana dalka Mareykanka uu joogaa laakiinse ma hayaan dhegeystayaashaas intooda badan فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا كذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر يوم أن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صدرك وترجو رحمة تسري وعاش القلب إخلاصا وصرت تحرق كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى تخرج حلمك الأغلى فما الروض بالزهر إليك تهنئة تنول فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في
su-aasha hadda taagan haddii aan jawaabteeda idiin soo gudbiyo waxay u dhacaysa sida tan sheeg magaca wargeyskii ama jariiradii ugu horreysay ee qaaradda yurub laga leeyahay ee daawacday sawiraan faahfaahsan oo ku saabsan shilkii gaariga ay ku geeriyootay boqoraddii la oran jiray Diana ee boqoraddii Wales. jawaabta joornaalkaas waxaa la oran jiray Bild haddii aad doontida Bild waa tahay waa la oran jiray dalka waxaa laga lahaa Jarmalka ayaa laga lahaa joornaalkaasi sanadii 1997 ayuuna sidaasi daabacay. إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر. waa hagaag gabagabada ayaan soo gaaranay su-aasha ugu dambaysa haddii aan dhegeystayaasha siiyo waa su'aal diini ah isla markaasina waa su'aal iska fudud waxay u dhacaysaa sida tan markii uu boqorkii la oran jiray qaysar uu ka quustay cabdullaahi allah ka raali noqday waa cabdullaahi bin xudaafe ayaa wuxuu ku yidhi cabdullaahi ma doonaysaa in aad madaxa iga dhunkatid ama iga shumisid markaasna aan ku sii daayo cabdullaahi wuxuu yidhi sidaas ma ii samaynaysaa madaxa aan kaa dhunkada muxume adigana sidaas ma samaynaysaa sheeg shuruudii uu ku xiray cabdullaahi boqorka waa su-aasha ugu dambaysa uguna fudud waxaana filaya dhegeystaha ugu horeeya inuu ka jawaabi doono waxaa sheegtaa boqorkii la oran jiray qaysar markii uu ka quustay sidii uu ula hadlayay ninkan xabsiga ugu jiray maxbuuska ah ee cabdullaahi bin xudaafa ayaa markii dambe wuxuu ku yidhi balniyo in madaxa ama dhakada ama basada iga shumisay diyaar ma u tahay si aan kuu sii daayo isagana wuxuu yidhi sidaas ma ahane sidaas haddii aa ii samaysid anigan madaxa iyo basada aan kaa shuminaya haddaba sheeg wixii markaasi uu codsaday cabdullaahi. halo star السلام عليكم. وعليكم السلام عبد الله. هي عبد الله عزيز عن سؤال isku dayo waxay ahayd dadkii maxbuusta ahaa ee la soo dayey ayaa wuxuu yidhi macnaha haa waan kaan dunkanayaa macnaha maxbuusta cabdallah adoo su-aasha dhedhereynaynin madaxa ayuu ka dhunkaday mataqaana maxbuusta haddii biishii deynaysa madaxa waan ka dhunkanaya ayuu yidhi mataqaana marka ugu dambaysa ku celi mar kale jawaabta waxa uu yidhi haddii aad macaasaaye maxbuuska dadka maas iga xeran aad biishii deynaysid waa madaxa waan ka dhunkanayaa aad iyo aad ay umahadsantahay cabdallah magacaaga ii sheeg oo dhammaystiran waa cabdullaahi xasan cali. cabdullaahi xasan cali adigana markii ugu horreysay magacaaga saxda la maqla cabdullaahi xasan cali oo jooga raamraaxa bulutotsi countiga mandera waa tahay lamarka kaa qoraynaa khadka ku jir صاحبي منا نسيم الحب والشكر كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صدري وترجو رحمة تسري وعاشا الإخلاص وصرت تحبك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير تخرج حلمك الأغلى فماس الروض بالزهر إليك تهنئة تنول فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر تخرج حلمك الأغلى فماس الروض بالزهر إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر
waa tahay khayrtaanu jecelnahay gabagabada barnaamijka ayaanu soo gaarnay sida hore kugu sheeganay siirada mid ka mid asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan soo qaban doonaa waa isla saxaabiga hadda aa maqlayseen ee cabdullaahi ayaan jeclahay in aan idinla wadaago siiradiisa oo dhammaystiran barnaamijkan aan kusoo gabagabayno su-aalihiina intaasaanu ku dhaafno hadduu allaha awoodda leh uu ogolaado waa tahay cabdullaahi bin xudaafa asahmiya allah ka raali noqdee saxaabi kasto taariikh nololeedkiisa waxun buu caan ku ahaa tusaale ama matalan waxaanu wada ognahay in saxaabigii la oran jiray saciid binu camir ajumxi allah ka raali noqdee uu caan ku ahaa zuhdiga in la naco laga fogaado dhaldhalaalka adduunyada ee wadatay iyo macaankeeda haddaba cabdullaahi bin xudaafa asahmiya wuxuu isagana caan ku ahaa geesinimo iyo inaan loo jaxanjixin cadowga alle diinta suubana islaamka waxay u suurtagelisaa cabdullaahi in uu la kulmo labadii boqor ee jiray xilligiisa waqtigiisa zamankiisa ee kala ahaa kisra iyo kaysar waxay kala xukumi jireen faris iyo rom nasiib wanaag cabdullaahi bin xudaafa wuxuu nasiib u yeeshay inuu la kulmo labadaasi boqor sheekada la xiriirto la kulankiisa uu la kulmay boqor kisra waxay ahayd sanadkii 6 ee hijriyada kadib markii uu go'aansaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam in uu diro qaar ka mid a asxaabta boqorada cajamta kuwa aan carabta ahayn ayaa laga wadaaye si ay ugu yeeraan diinta suubana islaamka inay qaataan ama kusoo biiraan nabi maxamed naxariisi nabadgelyo ee baweyne korkiisa ka yeele wuu dareensanaa dhibaatada hawshaasi iyo shaqadaasi ay wadato waayo saxaabada la rabo in loo diro magaalooyinkaasi waa dad aan aqoon u lahayn luuqadda ay ku hadlaan dadyowga halkaasi ku dhaqan waa magaalooyin aad u fogfog oo geeri go'an ah taasoo aynan weligood arag saxaabada waxay dadka iyo carabta iyo boqoradoodaba la rabaa inay ugu yaraan inay ka tagaan diimaha ay haystaan ee baadilka ah islamarkaasina ay qaataan oo ay ku soo biiraan bahaweynta islaamka iyo diinta suubana islaamka xilligaasi ee dhalatay waa safar wato khatar iyo halis aad u dhibaato badan waa safarkii safraa aan looga rajo qabin inuu dib u soo noqdo kii soo noqdana uu noqonayo midka ugu nasiibka badan ifka sidaas daraaddeed rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu kulmiye uu isugu yeeray uu la tashaday asxaabta isagoo u jeeday khudbad allah subxaanahu watacaala ayuu ugu horrayntii ku mahdiyey dabadeetna wuxuu saxaabada ku yidhi waxaan doonayaa asxaabay in aan qaarkiin ama kuwa idinka mida u diro boqorada cajamta ah ee aan carabta ahayn sidaas daraaddeed ha y khilaafin oo amarkayga ha ka hor imaanina sida ay reer banu israa'iil u khilaafeen nebigooda ciisa calayhi salaatu wasalaam asxaabtii ayaa waxay hal mar yidhaahdeen rasuulka allow meeshaad doontid inoo dir waan fulinaynaa amarkaaga haddaba rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu magacaabay 6 qof oo ka mid a asxaabtiisa si ay diinta suubana islaamka u gaarsiiyaan boqorada cajamta ee aan carabta ahayn iyo kuwa carabta dhammaantood 6dii nin ama 6dii saxaabe ama 6dii qof ee la magacaabay waxaa ku jira cabdullaahi bin xudaafa assahmiya oo ah saxaabiga sheekadiisa aan saarannahay waxaana loo doortay inuu gaarsiiyo dhambaalka ama fariinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ka siday boqorkii la oran jiray kisra cabdullaahi wuxuu u diyaargaroobay safarkiisii isagoo sugootiyey xaaskiisa iyo carruurtiisa kadibna wuxuu u kicitimay safarkii loo igmaday waa keligii oo axadaan allah subxaanahu watacaala ka ahayn lama socdo wuu iska socdaale socdo safarkiisii iska watay ilaa uu ka gaaray magaalooyinka reer faris markii uu soo gaaray magaaladii ay deganaayeen boqorkii kisra iyo tolkiisa wuxuu weydiistay inuu u soo geli karo boqorka uu la kulmi karayo in kale isagoo weliba u sheegay ciidankii ilaalada ka ahaa kisra inuu u sido boqorkooda dhambaal ama waraaq iyo fariin ka timid nabi maxamed kuna socoto kisra boqor kisra wuxuu u fasaxay u ogolaaday uu u idmay inuu u soo geli karo cabdullaahi lana kulmi karo sidii ayuuna ugu galay boqorka si uu la kulmo cabdullaahi oo weliba ka muuqata waa cabdullaahi sharafta iyo cizada diinta suubana islaamka boqor kisra ayaa wuxuu u baaqay ama u ishaaray oo farta ugu meedaaray nin ka mid a ciidamadiisii inuu ka soo qaado warqadda uu ninkaasi siday hase haatee cabdullaahi wuu diiday inuu warqadda u dhiibo qof kale wuxuuna yidhi rasuulka allah ayaa wuxuu i faray inaan gacanta kaa saaro warqaddan adiga kuu dhiibo mana laga yaabo inaan khilaafo amarka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam intaasi dabadeed boqor kisra ayaa wuxuu ku yidhi ninkii faraha ka qaada ha ii soo dhowaadee kadibna wuxuu cabdullaahi u dhiibay kisra warqaddii uu ka siday rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa loo yeeray nin turjubaan ah oo afka carabiga aad u yaqaano oo reer xiyara ah ninkaasi waxa uu ka yimid magaalada lagu magacaabo xiyaara waa magaalo ku taalo dalka ciraaq warqaddii ayaa la furay deetna waa la akhriyey waxaana ku qornaa sida tan magaca alleh kadib warqaddan waxay ka socotaa maxamed oo ah rasuulkii alleh waxaynu ku socotaa kisra oo ahaa boqorkii faris nabadgelyo allah ha yeelo korkooda ciddii raacdo hanuunka markii uu intaasi maqlay kisra aad ayuu u carooday u xanaaqay fadhiga ayuu ka booday warqaddiina uu ka dafay ninkii turjubaanka ah oo islamarkiiba wuu jexjexa ama dilaaciyey gabalgabal iyo jabjab ayuu u kala jarjaray isagoo aan ogeyn waxa kale ee warqadda ku qoran ama ku dhammaystiran aakhirkeeda dambe islamarkaana uu aad u qaylinaya isagoo lama sida tan ayuu warqadda iigu soo qoraya isagoo ah addoonkayga cabdullaahi bin xudaafa allaha ka raali noqdee wuxuu ka dhaqaaqay fadhigii kisra uu la fadhiyey isagoo aan garanaynin ogeyn calafkiisa waxa uu samayn doono iyo waxa la yeeli doono toona
in la dili doono in faraha laga qaadi doono midna muusan ogeyn. hase yeeshee cabdulaahi wuxuu naftiisa ku yidhi oo niyadda ayuu ka hadlay, waxba igama gelin marba haddii aan gutay ammaanadii iyo dhambaalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu iisoo dhiibay. boqor kisra markii ay carada ama xanaaqii uu ka damay ayaa wuxuu ciidamadiisii amar ku siiyey inay soo qabtaan cabdulaahi isagana u keenaan. nasiib wanaag ma aysan soo helin, maynan ku dhicin in ay soo qabtaan cabdulaahi, oo waxay ogaadeen in uu gaaro ka tallaabo ka gudba jasiiratul carab oo xadkoodii uu galay. saxaabiga jaliilka allah ka raali noqday cabdulaahi ibnu xudaafa wuxuu yimid magaalada madiina ee barakaysan isagoo la kulmay nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo ee baweyne korkiisa ka yeele. wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga warramay wixii uu kala kulmay iyo wixii kala qabsaday isaga iyo boqorkii kisra, iyo in uu jexjeexa dilaaciyo warqaddii uu isaga u waday. rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagana aad ayuu uga carooday arrintaasi, farriintii warqaddii isaga uu dhiibay sida loo dildilaaciyey. wuxuuna alla subxaana wa tacaala ka baryay inuu ciribtiro u baabi'iyo boqortooyada kisra, islamarkaasina ka dhigo dukum dakum. habaarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa la aqbalay oo dhulba ma dhicin, oo wuxuu alla subxaana wa tacaala ku saliday ku sababay qoorta u geliyay kisra wiilkiisa yaraa ee sharaawihi la ohan jiray, halkaasi oo uu ku dilay nafta kaga qaaday. taasi waxay ahayd sheekadii dhexmartay cabdulaahi ibnu xudaafa iyo boqorkii la ohan jiray kisra. khayrtaanu jecelnahay waxay nagala socotaan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari. waa tahay la kulankiisii inta waxaan ka gelaynaa cabdulaahi ibnu xudaafa iyo boqorka kale ee noo harsan. haddii aan u gudagalno sheekadiisii la xiriirtay cabdulaahi ibnu xudaafa ee la kulankiisii boqor kaysar ee xukumi jiray rome, waxay ahayd xilligii khilaafadii cumar binu khadaab allah ka raali noqdee sanadkii 19 ee hijriyada. wuxuu cumar binu khadaab allah ka raali noqdee diyaariyey ciidan la dagaalamo ciidankii romaaniyiinta ee xukumi jiray boqorkii kaysar. boqor kaysar wuxuu ciidankiisa amar ku siiyey oo uu amray in ay soo qabtaan mid ka mid a ciidanka muslimiinta, haddii ay ku guulaystaan abaalmarin uu siin doono, islamarkaasina u keenaan isagoo bad qabo. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray oo uu doonay in la soo qabto cabdulaahi ibnu xudaafa, saxaabiga sheekadiisa aan saaran nahay, waxaana loo keenay boqor kaysar sidii loo soo waday, iyadoo boqorka loo sheegay in cabdulaahi ibnu xudaafa uu ka mid yahay asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee goor sii horreysay soo muslimtay. boqor kaysar wuxuu si aad ah u eegay cabdulaahi, deetna wuxuu ku yidhi waxaan kuu soo bandhigayaa arrin. cabdulaahi ayaa yidhi waa maxay arrinta boqor kaysar? wuxuu yidhi inaad noqotid kiristaan ama masiixi. haddii ay yeeshid sidaasi, faraha ayaan kaa qaadayna oo cid ku dili mayso, dhinaca kalena waan ku wanaajinayna oo si wanaagsan ayaan kula dhaqmi doonaa. cabdulaahi ibnu xudaafa ayaa si geesinimo le ay ku dheehan tahay wuxuu u yidhi lagama yaabo in aan kiristaan ama masiixi noqdo, geerida iyo inaan dhinto ayaan kun jeer ka jeclahay inaan sidaasi yeelo. boqor kaysar ayaa haddana yidhi war cabdulaahiyow, haddii aad yeesho waxaan kuugu yeerayo ee gaalnimada ah, waxaan qayb kaa siinaya boqortooyadeeda. cabdulaahi ayaa muusooday oo dhoola caddeeyey ama qosol yar ayuu dhag ka siiyey, isagoo weliba ku xirxiran oo ku jeebadaysan silsilad. wuxuuna yidhi wallaahi haddii aad iigu deeqdid dhammaan wax allaali waxay hanti adiga aa haysatid iyo waxa boqorada carabta ay haystaan dhammaan oo maal laisku geeyo, markaasina aan diinta ka baxo, lagama yaabo inaan sidaas yeelo. il biriqsi oo micnaheeda ay tahay il inta laisku qabto haddana la kala qaado in la eg qadarkeeda, diinta inaan ka baxo lagama yaabo. boqorka ayaa wuxuu yidhi haddaba waan ku dilayaa. cabdulaahi ayaa yidhi waxaa doonta samee, idil ama idaa. intaasi kadib boqor kaysar wuxuu amar ku siiyey ciidankiisa kuwa shiishka ku xeldheer inay qabtaan, islamarkaasina afka laatiinka ayuu kula hadlay si loo daldalo tiir loogu xiro laga soo laalaadiyo. isagoo la hadlay ragga shiishka iyo toogashada ku xeldheer, wuxuuna yidhi ninkan toogta meel u dhow labadiisa gacmood, laakiinse isaga ha ku dhufanina. islamar ahaantana wuxuu u bandhigay in uu cabdulaahi diinta ka noqdo muslimnimada iyo islaamnimada ee uu gaaloobo. cabdulaahi haddana wuu diiday. boqorka ayaa haddana yidhi toogta meel u dhow labadiisa lugood, balse ha ku dhufanina. intaas kadib wuxuu boqorka amar ku bixiyey in laga soo dejiyo tiirkii uu ku xirxirnaa ama uu ku jeebadaysnaa. kadibna wuxuu codsaday in loo keeno dheri ama digsi weyn ama eelo, hadba sida u taqaanayd. dherigii ayaa waxaa lagu shubay saliid, dabadeetna dherigii ayaa dabka la saaray ilaa saliiddii ay ka karkarto oo ay ka burto. wuxuu yidhi boqorkii hala ii keeno 2 ka mid a maxaabiista muslimiinta, midkood ayaa lagu riday dherigii karkarayay si tusaale iyo cabsigelin iyo argagax looga dhiga cabdulaahi. meesha filimka iyo sheekada ka socotana waa uu arkaa. waxayr kadibna hilibkiisii kii dabka lagu riday saliidda buraysay ayaa kala tegtegay oo kala daadaatay, cadcad u kala gogo'ay, lafihiisana way muuqmuuqdeen oo way murmureen. kii kale ayaa sidoo kale lasoo qabto lagu sameeyey sidii saaxiibkii lagu sameeyey dabka saliidda lagu riday. intaasi oo dhan cabdulaahi wuu arkaa, waxaana la doonaya oo keliya sheekadan nimanka looma jeeda si isaga loo cabsigeliyo. boqor kaysar ayaa wuxuu daymado u fiiriyey cabdulaahi, isagoo ugu yeeray inuu diinta islaamka ka noqdo. hase aatee cabdulaahi sidii hore iyo si kasii daran ayuu u diiday inuu diinta islaamka ka baxo. markii uu boqorka ka quusta uu ka nooga cabdulaahi ayaa amar wuxuu ku bixiyey
in isna lagu rido dherigii ama digsigii saliidda karkaraysa buraysa dabka saarneed uu ku jiray labadiisii saaxiib oo kale sida la yeelay markii loo sii qaaday xaggaasii dheriga ama digsiga ee la rabay cabdulaahi in lagu rido dabka ayuu ilmeeyey ama ooyey raggii sii waday askarta kaysar ayaa waxay ku yidhaahdeen boqorow war ninka wuu ooynaya boqorkii wuxuu u maleeyey inuu cabdulaahi cabsaday amuu argagaxay markaasuu yidhi ii soo celiya dabka ku ridina kolkii iyo markii cabdulaahi lasoo istaajiyey boqorka hortiisa ayaa wuxuu boqorkii haddana u soo jeeday usoo bandhigay kiristaannimada iyo inuu diinta ka baxo laakiinse cabdulaahi wuu diiday boqorkii ayaa yidhi war haddaba maxaa kaa oysiiyey oo indhahaaga ilinta ka keenay cabdulaahi ayaa yidhi waxaan nafteeda u sheegay in daqiiqado kadib laigu tuuri doono dheriga saliidda karkaraysa ku jirto oo aan shahiidi doono hal mar anna waxaan jeclaystay in aan lahaado naf fara badan oo u dhiganto jirkayga inta tin oo ku taala oo kale mar walba oo naftayga baxda lagu celiya dabka intaasoo jeer in aan shahiido waatana meesha hadda markii uu boqorkii ka quustay cabdulaahi binu xudaafa ayaa wuxuu ku yidhi cabdulaahiyow ma doonaysaa in madaxa ama dhakada ama basada iga dhunkatid ama iga shumisid markaasna aan ku sii daayo cabdulaahi ayaa wuxuu yidhi aniga keligay ma ahane ma sii daynaysaa maxaabiista muslimiinta ee jeelalkaaga buuxo boqorka ayaa yidhi haa oo waan sii daynaya dhammaan maxaabiista weliba maxaabiista muslimiinta cabdulaahi wuxuu naftiisa ku yidhi maxay kaa dhimaysaa kaa taraysaa ku yeelaysaa oo kuu dhimaysaa in aad dhuunkatid mid ka mid ah cadowga muslimiinta madaxyadooda oo markaasi adigana ku badbaado adig iyo maxaabiista muslimiinta kale hal mar inaad madaxa ka shumisid nin aan muslim ahayn maxay kaa dhimaysaa oo naf badan ku badbaadisid cabdulaahi wuxuu u soo dhowaaday boqorka madaxiisa kadibna uu ka dhuunkaday basada boqorkii ayaa soo daayay sida ballanta ahaydba cabdulaahi dhammaan maxaabiistii muslimiinta markii uu cabdulaahi u soo galay cumar bin khadaab oo xilligaasi muslimiinta majaraha u haya allaha ka raali noqde ayaa wuxuu uga warramay wixii uu kala soo kulmay boqorka iyo sida lagu soo daayay maxaabiista isaga cumar allaha ka raali noqde aad iyo aad ayuu ugu farxay arrinta uu sameeyey ama tallaabada uu qaaday cabdulaahi wuxuuna u jileeca ama uu fiiriyey maxaabiistii la socotay dhankooda isagoo ku yidhi waxa mid kastoo idinka mid ah ama qof walba oo muslima waajib ku ah inuu dhunkado madaxa cabdulaahi binu xudaafa aniga ayaana idiin bilaabayo cumar ayaa istaagay kadibna wuxuu dhunkaday madaxa cabdulaahi binu xudaafa allaha ka raali noqdo cabdulaahi binu xudaafa waayo wuxuu tusaale wanaagsan u ahaa muslimiinta loogana dayan karay dhanka halyeynimada ama geesinimada akhyaartaan oo jecelnahay guud ahaan intaas ayuu ku idil yahay ku egyahay barnaamijkayga cawayska gaar ahaan tartanka ramadaanka inoo soo bilowday 9:40 daqiiqo dhammaan dhegeystayaasha ku mahadsan yihiin sida barnaamijka igala qayb qaateen haddii aad ka mid ahaan lahayd dhegeystayaasha qabadka tooska barnaamijka igala qayb qaatay kuwa dhanka tooska ah ee facebook ee nagala socday allah subxaanahu watacaala ayaa mahad idilkeed u sugnaatay allah soo noo suurtageliyey barnaamijka in si habsami leh oo wanaagsan oo nabad leh aan ku bilaawno xilligan kusoo gaarno innaga oo bad iyo caafimaad qabno tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah isniinta talaada ee soo gelaysa habeen dambe waa nasasho habeenkii xiga isniinta talaada soo qalab qaadanayso hadduu allah awoodda la cirka tiir la'aanta taagay inoo saamaxo nafta baaqi inooga dhigo dhammaantan isku duuban bahda radio bahda star fm waxaanu idinkaga tegaynaa oo aan idinku dhaafeynaa bashbash baraare barwaaqo hurdo caafimaad leh riyo raaxa leh cimri dheer cibaado suuban la cabsida alleh isma dhaafno idaacadda waa star fm codka gobolka waqooyi bari مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله تبدي خطوة من صغرها وقناعة من حجة تبدي عند الله